waxaa maanta degan xaaladda magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan kadib markii xalay xarumihii dawladda ay la wareegeen ciidamo militari ah oo ka gadoosan qorshe la damacsanaa in maanta magaalada Beledweyne lagu geeyo madaxweynaha maamulka Hiirshabelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaawe. ciidamada qabsaday magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa la magac baxay ciidanka badbaadada gobolka Hiiraan waxayna ka soo baxeen oo saldhig u ahayd xerada Lamagalay halkaas oo ahayd goobtii la filayay in maanta ay caga dhigato diyaarad helikobtar ah oo Muqdisho ka qaadi lahayd madaxweynaha Hiirshabelle. ciidamada qabsaday magaalada waxaa hogaaminaya saraakiil lagu magacaabo Cabdullaahi Barre oo ahaa ammaanduule ka tirsanaa qaybta 27aad, Ibraahim Sheellare oo ahaa taliyihii hay'adda immigrationka ee deegaanada Hiirshabelle, Nuur Dheere oo dhawaan laga qaaday xilka gudoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka Shabeellada Dhexe, iyo saraakiil kale oo dhammaantoodba ka soo jeeda beesha diidan in madaxweyne Cali Guudlaawe uu tago gobolka Hiiraan. ciidamada la magac baxay badbaadada gobolka Hiiraan ayaa qabsaday dhammaan xarumihii dawladda sida xarunta gobolka waxayna isku hareeyeen madaxtooyada oo ay ku jiraan madaxweyne ku-xigeenka Hiirshabelle Yuusuf Axmed Hagar Dabageed, wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya Karnal Mukhtaar Xuseen Afrax, madaxweynihii hore ee Hiirshabelle Cali Cabdullaahi Cusuble iyo mas'uuliyiin kale oo u badan xubno ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya. xogta ayaa tilmaamaysa in ciidamada qabsaday magaalada ay madaxweyne ku-xigeenka Hiirshabelle iyo mas'uuliyiin kaleba u sheegeen in amnigooda la sugayo haddii ay baxayaanna la gelbin doono. hase yeeshee waxaa loo diiday inay wacdaan warbaahinta oo ay ka hadlaan xaaladaha siyaasadeed ee ka soo kordhay Hiirshabelle. ciidamada booliiska oo isugu jira kuwa dawladda dhexe iyo kuwa maamulka Hiirshabelle ayaa wax dhaqdhaqaaq ah samaynin xalay intii ay magaalada ku jirtay xaaladda cakiran, halka ciidamada Amisom ay ka gaabsadeen gadoodka ay ku jiraan ciidamada. warar ayaa sidoo kale waxay tilmaamayaan in gaadiidka Amisom oo ku go'naa xarunta gobolka iyo goobo kale laga qaaday markii ay saraakiil ka tirsan Amisom ay la kulmeen sarkaal lagu magacaabo Cabdullaahi Barre oo hogaaminaya ciidamada gadoodka sameeyey. isku dhacyo kooban ayaa la sheegay in xalay ay ka dhaceen xaafado ka mid ah magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan kadib markii ciidamo maleeshiyaada ay rasaas ku fureen taliyaha booliiska Hiirshabelle Xasan Dhiciso oo doonayay inuu galo taliska ciidamada Amisom markii ay magaalada soo galeen ciidamada militariga ah ee gadoodka sameeyey. shacabka ku nool magaalada Beledweyne gaar ahaan kuwa ka soo jeeda beesha diidan Cali Guudlaawe ayaa dhigay bannaanbax ilaa xalay saqdi dhexe. dadka ku sugan Beledweyne waxay ii sheegeen in aan xalay laga seexan magaalada qaybo ka mid ah oo ay waddooyinka marayeen dad dhigaya bannaanbax ay uga soo horjeedaan tagista Cali Guudlaawe ee gobolka Hiiraan. wararkii ugu dambeeyey ee saaka naga soo gaaraya magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa soo warinaya in maanta xaaladda Hiirshabelle ay tahay mid degan, isla markaana ay shir Beledweyne ku yeelan doonaan odayaasha dhaqanka iyo ugaaska gobolka Hiiraan. xooga aan ka helay Beledweyne ayaa soo warinaya in kacdoonka dadka iyo gadoodka ciidamada ay dhasheen kadib markii siyaasiyiin ka baxay Muqdisho ee ugaaska xawaadle ugu hanjabeen in madaxweyne Cali Guudlaawe ay xoog ku keeni doonaan Beledweyne kadib markii ay natiijo la'aan ku soo dhammaadeen kulamo badan oo ay ugaasku la yeesheen. sidoo kale waxay xogtu tilmaamaysaa in odayaasha dhaqanka iyo ugaaska beesha xawaadlaba ay ciidamada saraakiisha ah ee gadoodka sameeyey iyo sidoo kale kacdoonka magaalada ka socda ay gadaal joog u yihiin. madaxweynaha maamulka Hiirshabelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaawe ayaa la filayaa in maalin kadib uu safar ku gaaro magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellada Dhexe, waxaana soo baxaya inuu qaatay go'aan ah inuu qabto doorashada aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya kadib markii uu dhicisoobay qorshihii la doonayay in maanta lagu xambaaro laguna geeyo magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan.